Assalaamu calaykum asxaabay. Waa mar kale iyo muuqaaladeeni ay naxariistu ku dheehan tahay waliba qaybtii shanaad. Sidoo kale waxaan idinka mahadcelinayaa sida aad channelkeena aad ugu soo biireysaan iyo qaabka aad uga falcelisaan muuqaaladeena. Haddaba aan u sii daadegno muuqaalkeena maanta. Jacaylka uu qabo kubadda cagta. Cunugan 14 sano jirka ahi ee lagu magacaabo Colin Donaldson kaas oo la daala dhacaya xanuunka lagu magacaabo Burkitt lymphoma ayaa la kulmay Jurgen Klopp iyo dhammaan xidigaha kooxda Borussia Dortmund khaasatan ciyaaryahanka Christian Pulisic kaas oo u yahay taageero weyn iyo midka uu ku daydo. Ninkan hooyo la'aantahi ayaa indhaha si fiican wax uga arag wuxuuna u baahan yahay ku yaalaha indhaha waxaana la gadaa $50 balse kaliya wuxuu haystaa $11 balse ninkan ayaa siiyay $500 waxay ku noqotay qaadan waa farxad iyo dabaaldeg ayuu isku darsaday cajiib. Ninkan tima jarahi ayaa timaha iska xiray isagoona garabsaa ugu muujinaya saaxiibkiis oo qaba xanuunka kansarka. Si lamida wiilkan ayaa timaha u jaraya hooyadiis balse isagana timihii ayuu iska jaray bal eeg farxadda hooyadiis. Odaygan halkan fadhiya ayaa qaadaya hees balse heesta intaysa dhammaan ayay dadkii halkan joogay oo dhanba bilaabeen inay la qaadaan. ciyaalkan ayaa la siiyay deeq gaar ahaan alaabta ciyaalka waxaana muuqaalkan baraarujin u yahay in ciyaalku ay yihiin dhalo haddii mar wax soo gaaraana ay adag tahay in dib loo soo celiyo moraalkooda bal ilaag falcelintooda la yaab kale. ninkan ayaa la dhacay qaabka degdegsiimada leh iyo dhagalugnaanta gabadhan isagoona go'aansaday inuu ka farxiyo maanta. And then how much money do you make every day? 100,000. How much is 100,000 in Australian dollars? $10. So you work 9 hours for $10 a day, and you're a very hard worker. And we appreciate you. This is 1 million. No. Yeah. It's okay, sir. No, please. It's okay. No. Please, you're a very hard worker. That's your money. Just keep for you. No, you're the best worker. Thank you so much. Thank you. I want to get, there you go. 1 million. This is for you. No, it's for you. Yeah, I'm being serious. Thank you so much. That's all right. Thank you, sir. You're amazing. High five. Thank you. You're a very hard worker and you deserve that. Thank you. ayaydan ayaa ka timid daanta kale ee buurta iyadoona ka soo goysanaysay mirahan oranjiga. haddaad Soomaali ku haysid mirahan magacooda noo faa'iidee aan daawano muuqaalkan quruxda badan. cunugan yar ayaa ka soo lumay hooyadiis isagoona u yimid haweeneydan iyadoona haysay inta hooyadiis ka imaanaysay. madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Barack Obama ayaa inta uusan gelin helicoptertan ayaa waxaa salaamay askarigan balse uma muuqan mid u jeeda askarigan isagoona dib ugu soo laabtay si uu u salaamo. cunugan yar ayaa go'aansaday inuu jaakadiisa u hawiyo macallimadiisa inta aysan u soo celin balse waa mid ku adag go'aankiisa malaha way u wanaagsan tahay. kadib markii uu ku guuldareysay ciyaarta walaashiis ka weyn ayaa u timid si ay hab u siiso. nimaan walaal haysan ayaa og in walaal macaan yahay
wiilkan yari eeg ficilka quruxda badan uu sameynayo. ninkan alaabta geeya xaafadaha ayaa helay warqad fariin qurux badan ay ku qoran tahay oo uu ka helay qofkan deegaanka ah kaas oo ugu mahadcelinayay habka dhiiranaanta leh ee ugu shaqeynayay sanooyin badan. dabcan waa xilligii koronaha ee iskarantiilka, haddaba ninkan ayaa siinay dadka jaarkiisa ah jimicsi ayagoo jooga hoygooda. waaw, waxaan jarkabood miyaa? haddaba qof ayaa sameeyey si dadka waddada maraya ay madadaalo uga sii dhigtaan. qof kasta oo halkan soo marana waa mid sii sameeya ciyaartan. askarigan taraafiga ahi ayaa ciyaalka maalintooda ka dhigaya maalin aad u qurux badan. qaar wuu xambaarayaa, kuwana way u dhul cadeynayaanba. isagana wuxuu ugu adeegayaa sidii u quruxda badneed, halka uu gaariyaasha ka joojinayo ilaa ay ciyaalka waddada maraan. qaarkoodna waa ula jaasiyaaba, kuwaaba salaan u saaraya. cajiibiga dheh, cunugan yarkaahi ficilka uu sameeyo ayay dadka goobtan jooga ka daba dhahayaan. isagana waa mid aad ula dhacsan ficilkaas. bal eeg ficilcilintiisa. bal eeg dhalaanka yari ee maroodigan sida ugula dhaqmo ninkan iyo ficilka ay samayso hooyadiis, sida inay leedahay sidaas loolama dhaqmo, soo raaligeli. cajiib iga dheh, ninkan dhallinyaradahi ayaa ciyaalkan tusaya qaabka loogu raaxaysto loona baashaalo xilliga roobaadka, iyagoona sameynaya ficilka uu sameeyo. dabcan waxaa ka muuqda farxad iyo furfurnaan, iyagoona maalintooda ay noqotay maalin aad u qurux badan. odaygan meeshan ayuu fadhiyey cabaar dhan isagoona sugayay inuu fuulo gawaarida yaryar, balse uma aysan suurtogelin arrintaas. laakiin nin dhallinyaro ah ayaa fuushiyey mid ka mid a gawaarida yar, isagoona kharashka lagu fuulayo jeebkiisa ka bixiyey. bal arag farxadda iyo dhulcadaynta ka muuqato wejigiisa. odaygii jawi kale ayuu galayba. ciyaalku waxay ugu jecel yihiin waa in kor loo qaado. dabcan aad ayuu xiiseeyaan, waana sida uu ninkan uga farxinayo ciyaalkan yaryar. dabcan ardaygan ayaa gam'ay, isagoona dhinac u dhici lahaa ayaa waxaa qabatay maclimadda, iyadoona toosisay madaxana u salaaxday. dabcan qof kasta oo ciyaara kubadda cagta hamigiisa ugu weyn waa inuu matalo waddankiisa. haddaba xiddigan lagu magacaabo Sakriya, isagoona u ciyaara kooxda Toulouse Club, waxaa looga yeeray xulka qarankiisa ee Morocco inuu ku matalo koobka adduunka ee Qatar. bal eeg shucuurtiisa, isagoona farxad darteed la sujuuday, saaxiibadiisna farxadda ay la wadaageen. intay ciyaar socoto isku dhacyo badan oo ciyaartooy ayaa yimaada. bal eeg ciyaaryahankan, isagoo ay dabaaldegeen saaxiibadiis ayuu wuxuu go'aansaday inuu laabta u qabojiyo dhigiisa. xushmad buuxda iga dheh. islaantan ay u dabaaldegaysa maalinta dhalashadeeda, iyadoona aysan cidna garabkeeda ahayn, balse dadkii joogay maqaaxida xitaa shaqaalihii ayaa isku yimid si ay ula dabaaldegaan xafladda dhalashadeeda. isagoona qof kasta u bilaabay inuu islaantan dhunkado. qof kasta naftiisa ayuu la baxsaday kadib markii daadad xooggan ay ku soo fataheen xaafadan. balse dadkan ayaa ka tegi waayey xayawaanadii joogay aaggooda, iyagoona soo qaaday cuntooyin iyo weliba doon ay ku badbaadiyaan xayawaanada miciinka baday saqafka dhismahan. keliya kuwaas maysan badbaadine ee xayawaan kastoo ay arkaan ayay badbaadinayeen. shaqo wacan ayay qabteen. daadad xooggan oo ka dhacay dalka Filibiin ayaa dad gaari 40 qof intay isku yimaadeen ay gurigan ka guuriyeen aagga ay ka dhaceen daadadka, iyagoona geeyey meel ka caagan daadadka. Soomaalidu waxay ku maamaadaa far keliya fool ma dhaqado. waqtigaa dib u kulmiyeen labada nin, kuwaasoo aan is arag muddo 50 sano ah, iyagoona iska garab dagaalamayay dagaalkii Vietnam. waqtiyo badan oo adkaa ay soo mareen, in badanna aysan is arag. dagaalka kadib ayagoona noqday aabayaal iyo awowooyin ayaa ugu dambeyntii kulmay, waxayna ceshan waayeen inta, maadaama ay taariikhdu aysan marnaba aysan guurin. xaddiga kuleelku aad u daran ayay bisadani doonaysaa inay soo gasho tugaankan. nasiib wanaag ninkan ayaa ka furay, bal eeg sida ay isku tuurtay qabowga meesha darteed. keliya bani aadamku iskuma naxariistaan, si la mid ah xayawaanadu waa kuwa is caawiya, sida digaagaddan ay u caawinayso eegan yar kaasoo hurdo badan hayso. halkaas ayuu ku eegaya muuqaalkina maanta. adig ahaan muuqaaladaas kee dareen ahaan ku soo jiitay qaybta hoose commentiga nagula wadaag. is aragti dambe oo xiiso leh.